hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa maanta howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda waxa ay ka samaysay degmooyinka Hilwaa, Yaaqshiid iyo degmada Dar es Salaam. NISA oo laabtay shaqada sugidda amniga ayaa soo kordhisay baro control oo ciidanku ay ku hubiyaan gawaarida iyo mootooyinka ka qayb qaata amni darrada magaalada. NISA waxa kaloo sare ay u qaaday tiradii ciidankii dhar cad ahaa ee ka howlgeli jiray degmooyinka Dar es Salaam, Yaaqshiid iyo degmada Hilwaa si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada. howlgalkan ayaa sidoo kale NISA waxa ay ku soo qabatay ku dhawaad 200 oo xabo oo mootooyinka faykonta ah oo bila sharci ah kuwa oo qaarkood qawaariijtu ay u adeegsato xasilooni darrada degmooyinka howlgalkan uu ka dhacay. darawalada iyo raggii watay mootooyinkan qaarkood ayaa kuwa ay ku raad joogtay NISA. qaar ka mid ah saraakiisha NISA ayaa inoo xaqiijiyay ragga la qabtay inay qayb ka ahaayeen amni darrada magaalada. Axmed Salaad, warbaahinta qaranka.